بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلهي بمهض تبارك وتعالى أبنك يا أمانك يا نبض قبك يا أرزاق ضريسوك هندري أديات بان غفر حسن حي إن كلاسو قيب قرار ضيدا يوم مامل كحرنت يا معلمين تبع فعالياتك يو هولهنا قبنا يعني خير كله waxaanay mudan tahay runtii la ishaadeeyo la taageero la bagabageeyo ayay mudan tahay wax kale haddaan qaban karin in kelmadaha aanu idin jeedino wax idin sheegno oo idin baraarujinaa waa waxyaabaha la gudboonay ay tahay in insha Allah idin la wadaagno kelmadaha soo socda waxaan insha Allah ku qaadan doonaa in isku sheegi doonaa sidee buu qofku noloshiisa u hagaajisanayaa. سؤال باك هالرئيس محاين كفلينا نرشين إنه هجاجسنو أصل كذا محاين كفلينا نرشين إنه هجاجسنو محاين كفلينا محن اسكو داي دونا موضوع إن كرد جامد عقوشين الله هذا يوصف عن إن اسكو فهم كرنا هذا ينقو هالكم فردنا وينوي مادو قف أردية ومقيقا ونراه أربعتن بلايا كشرته wararkana wax ku soo arkay libaax baan ku soo arkay dadka cunaya shabeel baan ku soo arkay wardayu ka caakufayu kabna lulaya kabna laalaadinay naftu haysaba beerta miin ku dhacayna inaynu gallo waynu iska ilaalinaynaa mid un baa laga yaabaa de axmaq inuu raana soo eegiyo kaana wax la tagaan inta badan markay dadku yaryar yihiin nolosha dambe ee ka dambaysa ee adduunyada lafteeda ta aakhiraba intaan la gaarin adduunyada lafteeda qaxarkeeda iyo dhibaatadeeda iyo culayskeeda iyo mashaakilkeeda ma dareensana caruurtu markay yaryar yihiin ilaa inta heerkiina ka soo gaarayaan waxa la iska yiraahdaa mahayamoog macnaheedu waa maxay ma garanayaan maskaxdoodu ma sawiri karayso waalidku hadduu ku yiraahdo waxa ma hayaba way moogina warba uma hayaan marka heesihii hooyadu ay caruurta ugu heesi jirtay waxa ka mid ahaa oo yacaanaysi horta reerku hadago iyadoo safar lagu jiro oo la xiran yahay ayaa waxa laga yaabaa inuu ilmaha yari hooyadii ku ooyo uraada caanaysi bariis iyo baasta bartaa dhigimaka ma garanayo waa la qaxayaa dhibaato lagu jira waxba lama hayo waxaas oo ma fahamsan isagu sida darteed in la yiraahdo dhalinyarada waliba da'yartiinan ha laga hadlo nolosha sidii u wanaajisan lahaayeen marar badan nolosha wanaajiskeeda iyo waxan ma fahmayaanba laakiin bal waxaynu isku dayi doonaa inaynu fahamsiino insha Allah tabaaraka wa taala. بوق هذا قيمة بدنا وقري شيخ دكتور سلمان العودة إلهي هكسر فرصة شارك دبعته كتيره أيا وحى وقري قصين فهم سين كريسا وحين دورنا نكود هذا الله وحول الراهير أيا وحى كتيره عيل كافصار كده حلا قصة مايو دول كالقضية ولا لسه يا عيل وحلاص منها تاير كاسبيها لقى صار رامركا عيل كجوديه سمركا تكون حشرتو تاير كون بدر كيسا بس راه يربا كل حدا شيء عيالكي كدبنا وحو جدها كسواركا جدها وحو كسواركا السماء راق روح بدنه لكن كوبا وانت تاير كا مركزا وحو هذا ما أحسن السماء لو كانت أكبر من هذا الله السماء قروح بدنان لهيدا ده انت كوينان لهيدا رهي كليك ويناي قمامورتي ماشي كشريبا واحد كورن شرين هذا يروي كوين تاي السماء هذا وين يربا تولي ما درجه وكهدي markuu xoogaystay u dhalinyar noqday sidii naas oo kale ayuu odayadii ka baxayay aroortii habeenkii markii gobolku saa u dhaco ayuu ruuxda ka baxaa ceelka oo uu qaraab taga habeenkii markii qaraab tagayeen buu habeenkii koobaad raacay wuxuu la wareeray u la jahwareeray samada quruxdeeda iyo cajaa'ibteeda iyo ballaadhnadeeda rihii kale oo qaraabanayo mar walba wuxuu ku yiraahdaa adeer samadu ballaadhan ama intan ilaa kaan jirtay markaasay rahwa weyn ku yiraahdaan ha adeer intan ilaa kaan jirtay iskala soco gabal markuu soo dhawaaday waa berigii subaxii in la gaaraa ay soo dhawaatay ayaaba waxa dhacday in ay rihii waaweyn ay yiraahdeen mariya weynu hooyanaynaa godkeenii baynu ku noqonaynaa rihii yaraa wuxuu yiri anigu noqon maayaniyo samada intan leegiyo quruxdan wallaana ka noqonayn sheekadu idinkeedu ku socotaa iskama sheekeynayo waqtigaygu aad buu yar yahay sheekada waxaan soo dhaxgelinayaa waa muhiim mowduuca isku xidhaysa rihii yaraa wuxuu aanu noqon maayo samada intan leegiyo quruxdan aan arkayaayo wallay ka taynaan noqonayn waar adeer meeshani waa khatar badanta
wax banu aadam la yiraahdo baa jooga ciyaal yar baa jooga soo toosaya iyaga hadhow ku dili doona war inaga waa salaadiis wax bala sheekaysanaya inta waaguba bariin rihi yara wuxuu leeyahay may idinku odayaal baad inoo moordi karaysaan oo waad daasheene anigu xoog baan hayo orod baan isqaadi karaya waa saynu sheekaysanno Soomaha nacam macallimiintiina waalidkiina markay idin la hadlayaan waa qaabka u aragtaan oday iska daalay iyo islaan hooyo waxba ogeynoon like iyo follow-toona aan la soconon commentina bixin garanayno saasa u aragtaan kadibna wuxuu yiraahdaa waar adeer u kaadiye bay yiraahdeen may biiraan waan joogayaa nabadgeliyo rahi waaweyna waxa way fahamsan ciyaar iskuulka way garanayaan dhagaxa iyo dhibta way fahamsan iyagoo iska xiroodeen rihi yaraay xoog ahaayo damaashaadaya ay ciyaar iskuulka ku soo tooseen markaa waxay ku sameynayaan soo la garan maayo sidii u eryanayeen ay u laaglaagayeen rihi yaraay baaska isugu garaacayeen ay afka dhiig kaga keeneen horta markii hore markii labaadna dhagax bay ku ballaariyeen rahaayar noloshiisu inay halkaa ku dambayso oo sidaa u khasaaro maxaa u sabab ahaa khibrad la'aanta iyo inuu maqli waayay dadkii ka waaweynaa socaynkaa maaha ahey idinku markaad ardaytiin wax baranaya teenager da'yar yar marka wax badan oo fursada nolosha idin sharixi doonto la idin ma sharixi karo wax badan qofka lama fahamsiin karo hurdadu inay macaantahay hadda ma fahamsiin karaysaan hurdo macaan haddaad ka soo toosto oo tiraahdo bahal waxaad iga kicisay subara miyaad dhadhansiin karaysaa aniga hurdadeeda may waad ii sheegaysaa way macaanaydo inaad tiraahdo mooyaane laakiin ima dhadhansiin karaysid dareemada asaaska lama wadaago qofka inaad u sheegto mooyaane ma joojin karaysid aalaamta nolosha dhibaatadeeda qaxarkeeda waa la iska gaadhiyo da'ba ina gaadhsiin ta dambe oo aakhiradeenna ana ilaahay baa inooga wada warramay tabaaraka wa tacaala annaga waayeelkaa iyo idinkoo yaryaritoona waxba ka garan mayno ilaahay baa say inoo sheegay waxa dambeeya in imtixaan dambeeyo jid siraad la mari doono dhibaato dhici doonto la xisaabtami doono erey kasta iyo daqiiqad kastoo adduunyadii kugu soo martay in lagugu xisaabin doono ilaahay baa inoo sheegay tabaaraka wa tacaala faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah dhammaanteen waxaynu ka nahay aakhire waxay nagu sugayaa xalay dhalay ilmaha yari markuu uurka hooyadii ku jira baa la yidhi caloosha hooyadii ku jiro haddii looga sheekeeyo adduunyo waxaa jirta magaalo hargeysaa la yidhaahdaa wadooyin baa ku yaalla madaxweyney leedahay waxaa mu fahmaya ilmaha yari ma fahmi karaya markuu uurka hooyadii ku jiro keliya waa nuunu wuxuu garanayaa un innaas loo dhiibo masaasad loo dhiibo bas intaas fahmi karaya laakiin ma fahmi karaya adduunya is haysato iyo xisbiye siyaasadeed baa jiray doorasho isku sidkan baa jira waxaa mu fahmaya ilmaha yari waa caalam aan weli gaadhin sidaasoo kale inaan inaguna u garanaynin caalamka inaga dambeeya ahwaasha qiyaamada iyo culayska yaalla ilaahay baa inooga warramay laakiin tabaaraka wa tacaala qur'aankeenna arrintaa ku buuxa haddaba nolosheennu waxay u wanaagsanaanaysaa iminka markaa waaweynaataan waxaan laydin carbilaataane oo adduun iyo aakhiraba intifaacsataane hadda haddii aad fahmi weydaan oo hadda laydinkala hadli waayo oo hadda noloshiinna qorshayn weydaan waxaad baraarugaysaan goor faatal qitaar tareenkiiba ku dhaafayba haddaba nolosheennu maanta qof kastoo idinka mid intuu jiraba maca annaga iyaga nugu dar odayadeeda la hadlayna wixii maanta ka horreeyey waxaa la yidhaahdaa injaazaat fii xayaatihi maanta oo uu joogana waxaa la yidhaahdaa imkaanaat waa wax u suuragala inuu fuliyo berri oo uu ku socdana waxaa la yidhahdaa haayaat intaasuu maan idin fahansiinaya kelmadda waan soo khatimaya marka insha allahu tacaala injaazaat waa wixii kuu soo fulay maanta markaad halkan taagan tahay inaad qur-aanka xafidsan tahay inaad arday tahay inaad wax soo baratay inaad class 7 marayso 6 marayso 8 marayso form 1 secondary inaad marayso waa wax kuu soo fulay weeyaan wixii aan kuu soo qabsoomin weli kuumay qabsoomin aqoonta inaad heer ka gaadhaa weli kuumay qabsoomin inaad shaqaysatood lacag heshaa weli kuumay qabsoomin inaad bulshada ku dhex noqoto qof qiimo iyo maamuus iyo mansib leh kuumay qabsoomin inaad qof noloshiisu wanaagsan tahay noqotaa kuumay qabsoomin waxaasoo dhan waa laylisyo ku sugaya weeyaan laylisyadaana waxaa lagu sameeyaa lagu hagaajiyaa waa waxa la yidhaahdo maanta waxaynu marayno alimkaanaat waxa kuu suurtogelinaya inaad wax noqoto afar shay unbaa kuu suurtogeliya inaad wax noqoto afar shay oo ilaahay inaga wada simay tabaaraka wa tacaala noloshu waa game waa ciyaar baa lidhi noloshu markaan eegayna waa afka dadka casriga ah qur'aanka markaan eegay noloshu ciyaar maaha waa xisaab baa taalla xisaab laakiin dadkan dambe si ay kuu fahamsiiyaan waxay yidhahdaan noloshu waa game oo kale afartaa shay baad haysataa
waxaad haysataa النفس صنف إذن كم جرت دمانتين كو لبا waxaad haysataan الجسم jir soomooda haysataan saddex waxaad haysataan caqli shayga saddexaad shayga afraad waxaad haysataan الطاقة energy baad haysataan afartaa shay qof shay dheer shanaad ma jiro inagu ma jiro qof saddex indhood leh oo dadka kalena ay laba leeyihiin ma haysaan wali ma fi inagu ma jiro qof afar gacmood leh ma jiro waa wada intaas waa laga simay afartaa shay aad haysato sidaad u maarayso eed uga shaqayso eed ugu dadaasho ayuun baa lagu kala tegayaa ardayay caqligaaga sidaad ugu dhagaysato wax wanaagsan cilmigaaga sidaad waqtigaaga u cilmi u siiso muraajaca u siiso wax u barato sida aad markaa waxa weeyaan jirkaaga u daryeesho sida aad daaqadaada iyo enerjigaaga waxaad ku bixinayso aad u wanaajiso sidaa taasunbaa kuu ururayso oo dhito kuu noqonayso noloshaada dambena saamayn ku yeelanaysa arday kasta oo dhallinyarnimadiisa wuxuu ku qaato unbuu aakhirkiisa noqdaa maanta waxaad ku dhex jirto unbaa beritoola kuu ururaysa maanta haddaad qof ciyaaraha jecel tahay ciyaaraha waxaa la eegayaa dadkii kaa horreeyey ciyaaraha wada xagee ku dambeeyeen taas baad eegaysaa si u wadeeynay kubadda oo afar cishaa laacib lalahaayo markii dambena waa looga baxay meelahaasuu isaga dayacan yahay ma tahay mise maaha adiguna saad u wadda laacibta halkaas bay kugu aroorinaysaa waa yahay qofkii wax bartay si fiican wax u bartay xaguu ku dambeeyey uu socday ama macallin buu noqday ama qof dadka irshaadinayuu noqday ama qof wanaagsan oo ummaddiisa wax ku soo kordhinayuu noqday wahaakada qofkii balwad iyo game iyo riwaayad iyo nafta oo ma garanaysaa la iska raacraaco ku daba socday xaguu ku dambeeyey wuxuu ku dambeeyey inuu noqdo khamarji weyn meelaha warwareego oo waddooyinka oo ama dadka dhaco tuuga ama waxaan ka dhaamin haysto oo meelaha balwad iyo balaayo un ka shaqeeya markaa tallaabooyinka maanta aad qaadaysaa waxay go'aaminayaan noloshaada dambe nooca ay noqonayso oo qodobka u dambeeya oo ah haayaadkuna waxay u qaybsamaan laba haayaat dunyawiya wa haayaat ukhrawiya haayaat dunyawiya waxa weeye waa noloshan adduunyada iminka markaad waaweynaataan aad heerkayga soo gaadhaan waxay noloshiinu noqonayso haayaat ukhrawiyana waa markaynu dhammaanteen godka gallo waxay naga dambaynaya إلهي وحي نوت المامية تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قفك الدون يا إلهي تبارك وتعالى إنه لكل وناكسن عمل في عنها السماء الله وحي نوت دارمية تبارك وتعالى رالي هاشيه سأدونية آخرة بإنه نكوهل إنه إلهي وحي يقيس يدين تينو قاعدنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ذكري يحسكي عبادتي قفك كتشيستا وحليه نرى العريرية ونحشره يوم القيامة أعمى قيامتنا وحل كين يا سقوا إن دلوها بكسنا يودع دعية قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا على الكيسو بلاب يا وحليه إله وين اندقب يا دويدي مركان شوقي آخر محانو بإندبالي قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى sidaas uba aayaadka ilaahay kugu iman jireen oo isaga dhaga tiri jirtay baa leeyahay markii adduunyada aad joogtay lagu sheegay iyadoo waxyigu kugu socod seexanaysay sheekhu mu naga soo gaabay masaajidada inaan carab fudud noogu dhib salaadoo dhan iyo cibaadadoo dhan ba ciyaar kula ahaydba waxyiga ilaahay lagu akhrinayaa lahayd waa arinta waan iska garanayaa iga daayo adduunyada laakiin kula macaanid sheekada adduunyada iyo damdamteeda iyo qaxarka adduunyada iyo waxaas aad bay kula fiicnay sidaa darteed maxaa la leeyahay xariga ilaahay qabsada tabaaraka wa tacaala cibaadada wanaajista cilmi baa wax lagu noqdaaye wax barta oo cilmiga aad iyo aad ha loogu dadaalo macallinku waxa uu ku leeyahay waar hooy wax barta macallin baan xasuustaa ilaahay ha barakeeyo macallimiinteedii dugsiga noo dhigi jiray ka mid ahaa qofku markuu weynaadunbu waxaan xasuusanayaa xisaabtu noo dhigi jiray xisaabtu way adkayd ma aqaani marka inay idiin fududaatee innaga wakhtigeega way hawl badnayd horta mise weli waa adagtay baasha xilligeega way hawl badnayd kadibna macallinka boqolkiiba 90 lama fahmi jirin annaga markuu noo dhigayo ardayda aad bay ugu adkayd ma aqaan ma wadcigay ahayd ma ardayday ahayd ma macallinkay ahayd aad uma aanan fahmi jirin marka xiisada markaanu fahmi weyno macallinkeegu wuxuu nagu oran jiray waar hooy baraad garan doontaana wax barta waar hooy baraad garan doontaana wax barta markaanu waaweynaanay baan oran jiray waar macallinka hadalkiisii wallaahi billaahi waa runtii
بريتو ولا مركز عد بيسك أقوي ذا ذون وينه قال قرام حتى قنادر سودعه وحكولا قبته ويدو عد أخي يوحى سميت رتموكت مركز اللي يريها ورا يا أخي يو رواية عيال تشيلان مركز الله كره هول قالوا إنه البود ذي سو قبصده إنه البوح وعسكدا وحي وصار تيستشلي تاسم بو عسكداون بريتو لا أخي إذا يوحى يدمدمتني عيارت الرئيس كذا ما نسى بلوا هدي بعد حسوستان أنتي نهلك وضع فردا طبعا سنة كده بنبى مال بخدعية من آخره ودقاتية أو سفر دير قالون صوب النقد لهين نين كلام يالك لا سفرة وكلام يالك لا كدعاء قف مال بخدعية مركا وحيكون أكسنان إنسان لشوا إنه أحبرتان إن شاء الله دداشان عبادة إلى لسان وركو وحكوسه وروريا هوريستاج إلهي صادم كون أجسان أرضي إما كساد ونا أجسان هوريستاج إله إما كساد ونا أجسان حرق إلهي ناقبسطان إما كساد ونا أجسان ضد ونا أجسان نقطان أيان رشينا مستقبل كذا بقى آخرة وحيد إليه لمس الله بدو أنت أصلا بكررنا يان ما تزرع تحصده واحد بيرته وبعد قوسته واحد سميسته يا عدل تيسته بعد إن شاء الله تبارك وتعالى وأيضا دعاء والد يدعاء معلم بس يدي كل عضو نرشي نسيا إن شاء الله ونكسناته وحلو بهي هي وحلا برته لعبادة يسته تدهل الدين إلهي يقان الله النقضه عيارت يا حرابات كل قد يا عبادة صلاة يا خيرك يا وناق يا توسنده إن شاء الله الصيت هاي لوقب صدق انت سنكسوكو بدونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته